doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo laba hay-adood oo samafal ah ka joojisay howlihii bani'aadanimo oo ay ka wadeen gobolka Tigreeda kadib markii ay ku eedeysay faafinta warar been abuur ah koox la eedeeyo si marmarsiyo loogaga dhigto wax cusub maana wax meelaha dagaaladu ka dhacaan oo dhan ay isticmaalaan weeye caddayn ay Itoobiya keentay oo hadda xaqiijinaysa in maaragtay hay'adahaas hub wadeenna anugu ilaa hadda ma maqal laakiin tan Itoobiya teel caddaymay leedahay dad 6 milyan ah inay go'doomisay waa arrin xaqiiqo ah caddaynteedana la hayo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegay inuu ka shaqayn doono mideynta iyo inuu cadaalad u sameeyo xildhibaanada xisbiga ay doonaan ka soo jeedaan waxa kale oo barnaamijka ku maqli doontaan dagaal kharaar oo ciidamada dawladda Afghanistan iyo Taliban ku dhexmarayo magaalada Lashkargah iyo ciyaarihii qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo si wada jir ay u soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh iyo Cabdulqaadir Yuusuf Cali aniga Xasan Cali Geelay ayaan halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha awoodda leedma balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Ciise Xaj Cabdulle mahadsanid xasan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dawladda Afghanistan iyo Taliban ayaa ka socda koonfurta magaalada Lashkargah oo ah xarunta gobolka Helmand wararka waxay sheegayaan in dagaalka xooggiisa uu ka dhacayo meel u dhow xarunta booliska ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay weerar culus oo lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga Afghanistan ee ku yaala Kaabul marsii horeysay bismillaah qaan Muhammadi ma uusan joogin gurigiisa xilli dabley ay isku qarxiyeen baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay la beegsadeen goobta amnigeeda sida weyn loo adkeeyey ee aagga cagaaran qoyska wasiirka ayaa laga daadgureeyey guriga waxaana la dilay 4 ka mid ah dableyda weerarka soo qaaday kooxda Talibanna waxay sheegatay inay ka dambeysay weerarka waxaana lagu soo waramayaa in 20 qof ay ku dhaawacmeen weerarka oo ay ka mid yihiin ilaalada guriga wasiirka Kai Eid Pron Eidu wuxuu ahaa ergeygii hore ee qaramada midoobay Afghanistan laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa 2010 wuxuuna qiimeyn ku sameeyay istaraatiijiyadda cusub ee Taliban What's going on now is that the Taliban is trying to improve its position, strengthen its position. Waxa waqtiga aan joogna socda ayaa waxay tahay ururka Taliban inuu isku dayayo inuu qabsado dhul xajistaana goobaha ay joogaan haddana wax uun wada hadallo ah hore loo sii wado hayeeshee habka uu u socdo wada hadallada haatan ayaa ah hanaan wax badan u eg qaabka wada xaajoodka ee isdhiibitaanka halka Talibanna ay culays ka saarayaan awoodda guud ee dalka surrender where the Taliban will take the brunt of the power in the country Lubnaan ayaa qabanaysa maalin baroordi qaran ah iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee qaraxii ka dhacay bartamaha Beirut in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhimatay markii tiro aad u badan oo ammoniumka ay ku qaraxday dekadda jabiga magaaladaasi ayaa lagu tilmaamay maanta inay tahay mid murugo badan hase haatee shacabka ayaa ka caraysan inaan cidna lagula xisaabtamin qaraxii dekadda ka dhacay 4 Agoosto sanadkii 2020 wasiirka qaabilsan caasimadda dalka Hindiya ee Delhi ayaa shaaciyay in baaritaan maxkamadeed lagu sameyn doono dilka gabar 9 jir ah taasoo horseeday in dibadbaxyo xoogan ay magaaladaasi ka dhacaan gabadha ayaa la sheegay inay geeriyootay kadib markii ay biyo u doonatay meel xabaalo ah qoyskeeda ayaa sheegay in gabadha la kufsaday isla markaana la dilay markaas kadibna la duugay ra'iisul wasaaraha Malaysia Muhyiddin Yassin ayaa ku adkaystay inuusan iscadili doonin waxa uu sheegay in codka kalsoonida weydiisan doono baarlamaanka bisha soo socoto cadaadiska dadweynaha ayaa ku sii kordhaya Mr Muhyiddin inuu xilka ka dego iyadoo Malaysia ay la daalaadhacayso kiisaska COVID ee sii kordhaya ugu dambeynna golaha wasiirada ku meel gaarka ee Suudaan ayaa ansixiyay hindisa sharciyeed loogu gogol xaarayay inay ku biirto dalkaasi maxkamadda dambiyada caalamiga ah tallaabadaasi oo lagu xukumi karo madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashir oo loo haysto dambiye xasuuq iyo dambiye dagaal inta lagu jiray colaadii Darfur hindisa sharciyeedkan ayaa weli u baahnaan doono taageerada golaha sare oo ay ku jiraan qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee militariga warka dunidana waan intaasaan dib idin kugu celiyo xasan iyo barnaamijka qaybihiisa kale aad ayuu mahadsan yahay Ciise Xaj Cabdulle oo nala socodsanayay warkii caalamka dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilownay dalka Itoobiya dawladda dalkaasi ayaa hakisay howlaha samafalka ee laba hay-adood oo caalami ah oo ay ka shaqaynayay gobolka Tigreeda ee waqooyiga dalkaasi oo muddo 9 bilood ah ay ka socotay colaadda hay'adda dhakhaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF Holland ayaa laga joojiyay gobolka Tigreeda iyo 3 gobol oo kale halka hay'adda NRC ee Norway ay sheegtay in go'aanka dawladdu uu saameeyay guud ahaan howlihii ay ka haysay dalkaasi Itoobiya
dowladda Itoobiya ayaa labadan hay-adood ku eedeysay faafinta warar been abuur ah. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay inoo soo dirtay wariyaha BBC-da Catherine Bayurahanga waatan Faadumo Cali Abukar oo soo jeedinaysa. xilli ay ururo badan oo gargaarka ka shaqeeya ka cabanayaan caqabado badan oo ay kala kulmeen inay gargaar geeyaan gobolka Tigray ayaa waxaa la sheegay in amarka dowladda Itoobiya uu ka sii darayo xaaladda. guddiga qaxootiga ee Norway ayaa caawinaad u fidiya ku dhowaad 600,000 oo qof oo ku sugan Itoobiya. hay-adda caafimaadka ee MSF ayaa sheegtay in kadib joojinta qaybteeda Holland ay weli qayb kale ka howlgalaan Tigray iyo weliba qaybo kale oo dalka ka tirsan. labada urur ayaa horey waxay uga hadleen inaysan jirin caawinaad gargaarka degdega ah oo la gaarsiiyo gobolka Tigray, balse dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in kooxaha gargaarka ay faraha la galeen waxaana shaqadooda ahayn, ayna shaqaalaysiiyeen shaqaale ajaanib ah oo aanan haysan waraaqaha ogolaanshaha inay dalkaasi ka howlgalaan. taasi waxay ahayd Faadumo Cali Abukar oo la socodsiinaysay warbixintii wariyaha BBC-da Catherine Bayurahanga. haddaba mamnuucidaasi dowladda Itoobiya ay mamnuucday hay'adahaasi samafalka ah ee labada ah muxuu ka qabaa xeerka caalamiga ah ee arrimaha bani'aadanimada maxaase loo fasirin karaa go'aankaasi ay qaaday dowladda? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan u bandhigay Maxamed Axmed Cali oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha bani'aadanimada. sawirka guud gobolka Tigray ka jira ee xagga humanitarianka ah in ay go'doonsanayd oo ay ka go'doonsanayd xagga Suudaan iyo xagga Itoobiya iyo xagga Eritrea. marka go'doomintii horey loogu hayay oo dowladda Itoobiya lagu eedeynayay inay maaragtay caawinadii diiday inay u socoto xaggii maaragtay u baahanaya in lagu kabi karo. markii horena jamac baa hay'adaha loo go'doomiyey oo dee mar ay wax soo marsiiyaanba markii hore ma ay jirin. haddana waxaan u malaynayaa in si gaar gaara loo beegsanayo waana runtii dembi weeye. fiiriyo xeerarka caalamiga ah ee humanitarianka. dowladda Itoobiya horey waxay ugu eedeysay qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah in ay hub iyo taageero siinayaan fallaagada Tigrayda. marka maxay ka dhigan tahay eedeynta noocaasi oo kale ah? horta anagu meesha ma joogno, laakiin waxa weeye gobolka Tigray 3 meelood baa laga geli karaa. meel waa dhanka Eritrea, meelna waa dhanka Itoobiya, dhinacna waa dhanka Suudaan. saddexdabana dowladda Itoobiya joogta iyo Eritrea oo aan midna heshiis la ahayn Tigray. marka waxaan u malaynayaa waa un marmarsiyo dembigooda ku qarinayaan weeye, laakiin caddaynna ma ay keenin oo caddayn baa loo baahan yahay. eedaynta iyaga inay eedayn ka horgeynayaan, marka caddayma ay soo bandhigeenna mayna arag. laakiin suurtagal ba ma aha hay-adaha, sababtoo ah hay-adaha dhanka Suudaan xuduudda Itoobiya joogta iyo Eritrea baa jooga. meesha kale laga geli karo waa hawada Itoobiya haysata oo ma ay ogola inay ka aado. marka xaggee bay soo marsiinayaan hubka iyo saanada hay-aduhu? laakiin waxaa la eedeynayo waa hay-ado samafal oo la leeyahay arrimihii bani'aadanimada ayay ka wacdeen oo waxay aadeen dhanka inay taageeraan koox fallaaga dowladda ku ah. marka soo arrintaasi ay caqabad kuma noqon karayso gargaarkii la doonayay in la gaarsiiyo dadka baahan ee dhibaatada ay haysato? arrinta tan horta eedaynta ah oo koox in la eedeeyo si oo marmarsiyo loogaga dhigto wax cusub maana, wax meelaha dagaaladu ka dhacaan oo dhan ay isticmaalaan weeye. caddayn ay Itoobiya keentay oo hadda xaqiijinaysa in maaragtay hay-adahaasi hub wadeenna anugu ilaa haddana ma maqal. eedayn un baan maqalnay. eedayntaasna haddii go'aamadii dowladda Itoobiya ay meesha ku go'doominaysay baa laga yaabaa inay ugu maaragtay marmarsiyo u raadinayso. haddii dowladda Itoobiya oo maalmahanba eedeynaysay qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ay qaadato go'aan ka lamid ah oo ay ku soo rogto hay-ado kale oo samafal, ma qabanayaa sharciga caalamiga ah ee arrimaha bani'aadanimada? sharciga caalamiga already Ethiopia violations fara badan bay ku samaysay. in gaadsan loo adeegsado dad 6 milyan baa ku nool gobolka Tigray, dagaalaha ka socday dhammaantood waa baahan yihiin. 4 milyan ku dhawaad baa waxaa la sheegayaa inay ku jiraan xaalad khatar ah. in hawadana laga go'doomiyo, dhulkana laga go'doomiyo, iyadaa dembi ku filan. haddana inay hay-adihii taarget garaysto oo ay hay-adihii ka shaqaynayay caqabad geliso waa dembigii unbay kororsanaysaa. waana dembi violation weeye. sharciga maaragtay caalamiga waa ku xadgudub bay ku tahay. eedaha xukuumadda Addis Ababa oo kaliya miyaa yeelanayso mise xitaa hay-adahan way soo gelayaan maadaama iyaga la tuhmayo oo ay tahay in ay nidaamkii dawliga ka wareeganayaan oo ay mucaarad taageerayaan? horta nidaam mucaarad ay taageerayaan uma maqal. waxa weeye marka hore dawladday waajib ku tahay inay hay-adaha u fududayso inay gaaraan dadka baahan. haddii dawladda laga kari waayo adiguna hay-ad aad tahay waxbaa isu dheelitiraysaa. ma dadkii baa loo gargaaraa mise dawladda waxaa lagu ixtiraamaa, go'doominta lagu ixtiraamaya. tuunkuna waa tuun de ilaa caddayn la helo. caddayn ilaa haddeer caddayn ay Ethiopia soo bandhigtay hub hay-ado wada oo inta lagu qabtay lasoo bandhigay ma aanan arag. laakiin tan Ethiopia teel caddaymay leedahay dad 6 milyan ah inay go'doomisay oo mucaawanada u diiday, hawada ka go'doomisay, dhulka ka go'doomisay. waa arrin xaqiiqo ah oo aan caddayn u baahnayn, caddaynteedana la hayo.
qaabkee ayay ahayd in colaadan gobolkaasi ka jirta loo maareeyo marka la fiiriyo xeerka caalamiga ee arrimaha bani'aadanimada gaar ahaana goobaha colaadda wallahi waxa weeye engagement waa inuu ahaadaa horta marka koowaad dad civilian inaan la taarget garaysan hantidooda iyo iyaga inaan dagaalka lagu taarget garaysan inaan lagu dhex diriirin dadka shacabka dhexdiisa in hantida sida beeraha sida maaragtay kaydadka cuntada sida suuqyada sida infrastructure-ka buundooyinka inaan la jebin oo la burburin in la ogolaado mucaawinada iyo dadka ka shaqeynayaaba inay dhex maraan dhinacyada diriraya haddii maxaabiis la qabto in si bini-aadamnimo leh loola macaamilo kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed cali oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha bani'aadanimada oo qadka telefoonka iigu warramayay dhegeystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay waxaana ka mid ah jaamac maxamed food oo jooga cayna wuxuu yidhi waan ka xumahay dowladda etoobiya ee labada hay-adood ee samafalka ay ka joojisay howlihii bani'aadanimo oo ay ka wadeen gobolka tigreeda runtii waa mid ayaan darro ah buu yidhi in hay-adaha gargaarka u jooga dal laga joojiyo howlihii samafalka wuxuu yidhi tallaabadana ay hay-adda hadda ay qaaday buu yidhi xukuumadda abiy axmed waa mid muujinaysa in aanay u aabayeelaynin kooxda t p l f iyo shacabka tabaalaysan ee tigrayba faarax maxamed caydiid oo jooga isna hargeysana waxa uu leeyahay dowladda etoobiya ee labada hay-adood ee samafalka ee ka waday gobolka tigreeda ka joojisay dalkeeda waxaan u arkaa mid ay xukuumaddu adisaba cadaadis ku saarayso t p l f iyo guud ahaanba shacabka tigreeda waase tallaabuu yidhi aan wanaagsanayn in hay-adihii samafalka la siyaasadeeyo sababtoo ah iyagu shaqadoodu waa inay badbaadiyaan naf bani'aadanimo oo halis ku jirto ayuu yidhi way mahadsan yihiin dhegeystahaasi dhegeystayaasha kale ee ra'yigooga soo dhiibanaya halkaad nala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba wahagaag wararkii soomaalida haddii aan u soo laabanno guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono midaynta iyo sidii cadaalad loogu samayn lahaa xildhibaanada iyagoo aan la eegaynin xisbiyadooda guddoomiye cabdiqaadir ayirahda cabdirasaaq khaliif axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa shalay kursiga ku hantay 42 cod waraysi gaara uu siiyey b b c da ayuu ku sheegay in muhiimaddu ay tahay u shaqaynta dadweynaha haddaba guddoomiye cabdirasaaq khaliif axmed waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha b b c da axmed nagaashe والله dareenkayga aad u wanaagsan yahay waa dareen farxadeed marna waa dareen mas-uuliyadeed oo runtii culaystaan dareemaya hawsha noo taalla waa xil aada u ballaadan runtii dadweynaha reer somaliland oo u codeeyey isbedel filashadooda aad bay u weyn tahay waxaa laga yaabaana inay adkaato filashadooda iyo waxaa la qaban karaa inay kala bataan laakiin annaga dadaal baana saaran oo qofka bini aadamka xilka ilaahay saaray marba waa intii uu gudan karo waxaana deenayaa inaanu idanka ilaahay xil gudasho dhab ah dadka iyagiina soo doortay inaan loo abaalgudi doono oo wixii aanu qaban karro aanu qabanno guddoomiye ku-xigeenkaagu walow uu ka soo baxay xisbiyada mucaaradka haddana markii dambe waxa uu sharaxnaa xisbulxaakimka waanaynu ognahay inay xanafi ka dhalatay loolankii adkaa ee aad xilalkaa u gasheen xanaftaasi ma xafiiska idinla geli doontaa mise si aad ku wada shaqaysaan oo fudud ayaa iman doontaa labada xubnood ee guddoonka igula soo baxay labaduba waxay ka soo baxeen mucaaradka xisbiga ucud bay ka soo baxeen marka labaadna haddii xataa xisbulxaakimka ka soo bixi lahaa xanaftii doorashada halkaasay ku dhammaatay waxaan guddoomiye u noqonayaa gole la yidhaahdo golaha wakiilada oo mid ah odayna aanu ahay iskuwadkoodii ina aan mas-uuliyaddeedu aniga isaaran tahay xukuumadda laftigeeda iyo madaxweynahana haddii uu jiray loolan iyo kalfiixasha way dhammaatay maanta dan baa loo wada gudbayaa xil baana la saaran nin walbana xilka meesha kaga aadan buu kaga deegmi doonaa haddii ilaahay idimo wax dambe oo jiildana ka tegi mayso aniguna insha allah waxaan isleeyahay habdhaqankeedii waad la imanaysaa madaxweynuhuna waxa uu muujiyey runtii soo dhaweyntii ku habboonayd xaqa loogu lahaa anigana layga fili maayo dhacdhac iyo waxyaabo kale oo aan munaasib ahayn xuquuqo iyo waxaa jira iyo xadad sharcigu u sameeyey hay-adaha dawladda ee kala duwan wixii awoodaha iyaga iyo mandatka iyaga ana cidna uma daba fadhina annagaa qabsanayna marka waxaan isleeyahay waa un isdheelitir iyo check and balance unbaa meeshii laga rabaa mooyaane wax kala jiidasho iyo cunfi iyo xumaanimidnama dhici doonto mar haddii marka hore uu qorshihiinu ahaa isbahaysigu inuu wada helo hoggaanka golaha oo dhan laakiin markii dambe ku-xigeenkaagu
uu ahaa xubnihii xisbiga ucid ka soo baxay ee isbahaysiga la yeeshay xisbulxaakimka arrintaasi isaga iyo xisbigii uu ka soo baxay ee ucid wax adayga oo shaqadaadii hor istaagaysa iyo tiinii shirgudoonka ma ka dhalanaya maya waxa weeye awooda dastuuriya baa jira oo guddoomiyaha awood u leeyahay ku-xigeenaduna awooday leeyihiin nin walbana wuxuu barakarayn doonaa oo ku dhaqmi doonaa awoodihiisa dastuuriga ah run ahaantiina ismadii xanaf baa dhex taalla saaxiibkay saciid oo ah guddoomiye ku-xigeenkayga iyo xisbigii uu ka soo baxay waxay ahayd in ay isla garan waayeen isaguna de runtii xaq buu leeyahay damac siyaasiga inuu yeesho iyo hunguri inuu xel qabto xaq buu leeyahay xisbiguna inuu wax garto oo si kala daban u arko xaq buu leeyahay marka labadaa unbaa la isla sheegay ismadii iyaga laftigooda dhib baa dhex yaalla dadka faaleeya siyaasadda somalilan weliba maalmihii ugu dambeeyey ka hadlayay waxay sheegayaan xisbiyada mucaaradku markii hore culays badan kumay haynin xukuumadda laakiin mar haddii imika golihii wakiilada ay hoggaankii u qabteen waxay ka dhiganayaan madal ay ku adkeeyaan oo ay wax walba kaga hor yimaadaan si ay isu muujiyaan inay haatan mucaarad adag yihiin taasi ma dhici doontaa golaha wakiiladu sida aan kuu hormariyey wuxuu leeyahay awoodo dastuuriya buu leeyahay awoodihiisa dastuuriga ahina waxa weeye waxaa ka mid ah hayadaha dawladda oo dhan inuu la shaqeeyo wax kasta oo xukuumadda iyo madaxweynuhu ay xaq u leeyihiin ee golaha yimaada waa xaq dastuuri ay leeyihiin inay golahu kula shaqeeyaan ama odaygu ahaanaya waa waajib dastuuri oo aniga isaaran waxaa la rabaa xukuumadduna inaanay geysanin oo ka digin awood dastuuri oo aanu anagu leenahay waxaan rajaynayaa inuunay noqon doonaan laba golo isdhamaystira hawsha ugu horraysa ee aad haatan is leedahay waa ta ugu mudan ee ay tahay inaad ku dhaqaaqdaan maxay tahay runtii hawsha ugu mudan aanu ku dhaqaaqayna waxa weeye tallaabooyin isxigxiga oo badan baa noo yaala marka koowaad waa dhismihii guddiyo shaqo oo ka shaqeeya howlaha qaranka u shaqeeya dib u eegis iyo dib u habeyn xeerkii golahu ku dhaqmi lahaa muddo shaqada soo socota iyo wixii kale ee xeerar ee ama horey ugu yaalay ama hadda corintooda ay u baahan tahay hawlihii guud ee qaran ee ay ahayd inay la shaqeeyaan waa ka wada shaqeeyaan hayadaha kale dawladda ma yala hawsha u taalla waxaa intaasoo dhan ka wensaan kuu hormariyey filashada bulshada oo aada u weyn oo ay tahay in ay buuxiyaan wixii ay ka awoodaan doonta kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed waxa uu waramayey wariyaha b b c da axmed nagaashe wahagaag dalka afghanistanna dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda dalkaasi afghanistan iyo dagaalyanada ururka taalibaan ayaa ka soconaya magaalada lashkargah ee xarunta gobolka hedmad ee koonfurta dalkaasi afghanistan wararka ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu ka socdo meel u dhow xarunta ciidamada booliska ee magaaladaasi dhanka kale ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay weerar culus oo lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga dalkaasi laba baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday guriga wasiir bismillaah khan maxamedi oo xilligaasi ka maqnaa guriga la weeraray oo ku yaala goobta amnigeeda sida weyn loo adkeeyey ee aagga cagaaran wararkii arrintaasi b b c du ka qortay waxaa soo koobaya faarax lamaane qoyskiisa ayaa la soo badbaadiyey waxaana la dilay 4 ka mid a raggii dableyda ahaa sida ay saraakiil sheegeen kooxdu waxaa kaloo ay ka digeen weeraro dheeraada oo lagu qaado hogaamiyeyaasha xukuumadda arrintan ayaa waxa ay timid iyadoo dagaalku uu ku sii fiday magaalooyin kale kadib markii ay ciidamadii shisheeye dalka ka baxeen golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysana waxa uu ku baaqay in degdeg loo joojiyo dirirta in ka badan 20 qof ayaa iska horimaadkaas ku dhaawacmay boolisku waxa ay sheegeen in 4 ka mid a 5 qof ee weerarka soo qaaday la dilay kadib markii ay gudaha u galeen guriga wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay sheegtay in weerarku uu ahaa mid qarax isbiimayn ah loo adeegsaday ciidanka sida gaarka u tababaranaya degdeg waxay u gaareen xaafadaha dibadda ka ah aagga cagaaran halkaasoo ah meel aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan tiro safaarado iyo dhismayaasha dowladda ah weerarka ayaa waxa uu soo afjarmay kadib in ka badan 3 saacadood oo rasaas la isweydaarsanayay bismillaah khan maxamedi waa wasiirka gaashaandhigga ee afghanistan waxaana weerarka kadib uu soo saaray hadal uu fiidiyo ku soo duubay sham imruz یک حمله انتحاری توسط تروریستان خوناشام waxaa weerar ismiidaamin ah lagu qaaday gurigayga kaasoo ay fuliyeen argagixiso dadcun ah alle ayaa mahad leh aniga iyo xubnaha qoyskayguba waxyeello inagama soo gaarin weerarka balse nasiib darro qaar ka mid ah ilaaladayda ayaa ku dhaawacmay waxaan idiin xaqiijinayaa dhammaantiin walaalahayga qaaliga ahow in dhacdooyinkani aysan waxyeello u geysan doonin niyaddayda iyo go'aankayga aan ku difaacayo adinka iyo dalkayguba dagaallo culus ayaa iyana labada dhinac la soo sheegay inay xalay ku dhex mareen magaalada lashkaar gaah
dadka deegaanka iyo kuwii halkaa ku qaxay ayaa waxaa lagu wargeliyey inay isaga guuraan qaarkoodna waxaa u suura gashay inay ka baxsadaan deegaano ay ku yaalaan dhismayaal ay dowladdu leedahay laakiinse waxaa aad u yar meelaha nabdoon ee la aadi karo dhinaca kalena goobaha uu militarigu gacanta ku hayo ee ku yaala gobolka helmaan ayaa waxaa ku dhacay gantaallo maraykanku uu soo riday booliska kaabulna waxa ay sheegeen in bam wadada dhinaceeda la dhigay uu dhaawacay 3 qof dadka magaalada kaabul iyo magaalooyin kale ayaa waxa ay ku qaylinayeen allahu akbar ayaga oo taageero u muujinayay qolyaha iska caabinta kala hor yimid Taliban arrintan ayaa dhis waxay u noqonaysaa ciidanka amniga ee Afghanistan ee dagaalka kula jira mintidiinta isku dayaya inay ka qabsadaan tiro magaalooyin ah qabsashada Lashkar Gah ayaa qiimo weyn waxay u leedahay kacdoon wadayaasha ayaga oo weli hore ugu sii socda duulaanadooda kadib ka bixitaanka ciidamada shisheeye Helmaan ayaa halka xudunta u ah ololaha Mareykanka iyo Britain taliyaha ciidamada Ingiriiska Sir Nick Carter waxa uu BBC-da u sheegay in istiraatiijiyada Taliban ay tahay mid la sii filayay hase yeeshee aysan ka muuqan wax calaamada oo muujinaya goorta ay dhamaanayso For the Taliban, the south, and there I'm talking about Helmand and Kandahar. ururka Taliban ayaa jooga dhankan koonfureed halkaasoo ah Helmand iyo Kandahar laakiin sidoo kkale waxay ku fitan yihiin Herat waana goobo muhiim ah maxaa yeelay inta badan dadka ku nool waa Bashtuun dabcan haddaad dib u noqoto sanadihii 1990aadkii taas oo halkii ay asalkooda ka yimaadeen marka iyagu waxay haystaan goobo ay si adag uga dagaalami karaan sidaa darteed waxaan filayaa inaanu jirin qof shaki ka qaba inay dagaallo ka dhici doonaan Helmand iyo Kandahar arrintaasi Herat haatan waxaan filayaa inay tahay wax macquul ah inay ciidamadu ay si kalsooni leh dib isaga caabi karaan dagaalka lagu soo qaaday codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii Faarax Lamaane ciyaarihiina Louis van Gaal ayaa markii saddexaad loo magacaabay tababaraha xulka Holland wuxuuna bedelayaa Frank de Boer oo shaqada ka tagay bishii hore kadib guuldaradii ka soo gaartay kulankii Jamhuuriyadda Jeeg ay la galeen wareegii 16aad ee Euro 2020ka waa hagaaga haatan dhageystayaal ku soo dhawaada baafintii baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tibinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caisha Siciid Xasan Caash mahadsanid Aligo baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Xasan Axmed Yuusuf oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Xuseen Axmed Yuusuf waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Norway haddaba haddii uu maqlayo Xuseen Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xasan Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Norway Shamsu Nuur Alaale oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Maxamuud Nuur Alaale waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Canada sanadkii 2013 haddaba haddii uu maqlayo Maxamuud Nuur Alaale ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Shamsu Nuur Alaale iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Hani Xasan Cali oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Yaasiin Xasan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Suudaan 2014 haddaba haddii uu maqlayo Yaasiin ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Hani Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Tufaax Axmed Daahir oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Farxiyo Axmed Daahir waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Algeria sanadkii 2015 haddaba haddii ay maqlayso Farxiyo Axmed Daahir ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Tufaax Axmed Daahir iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Ikraan Cali Cusmaan oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Samiira Cali Cusmaan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Pakistan 2014 haddaba haddii ay maqlayso Samiiro ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ikraan Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Cabdiqani Maslax Cali oo joogaday waxa uu baafinayaa Mahad Maslax Cali waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika sanadkii 2012 haddaba haddii uu maqlayo Mahad Maslax Cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Cabdiqani Maslax Cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Diiriye Maxamed Damas oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Faadumo Maxamed waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Tanzania 2017 haddaba haddii ay maqlayso Faadumo Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Diiriye Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Firdowso Daahir Nuur oo joogta Garbaharey waxay baafinaysaa Safiya Daahir Nuur waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Koonfur Afrika sanadkii 2013 haddaba haddii ay maqlayso Safiya Daahir Nuur ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Firdowso Daahir Nuur iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Xabiibo Xaashi oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Daahir Xaashi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan France 2016 haddaba haddii uu maqlayo Daahir Xaashi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa
warkiisa la gaarsiiyey xabiibo xaanshi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cusmaan xaashi cusmaan oo joogo goday waxa uu baafinayaa carab xaashi cusmaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan tanzania sanadkii 2011 haddaba haddii uuna maqlay carab xaashi cusmaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cusmaan xaashi cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. daa'uud axmed cali oo joogo baardheer waxa uu baafinayaa ibraahim axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan UK 2015 haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo daa'uud axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. yunis axmed cali oo joogo goday waxa uu baafinayaa sharmaake axmed cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadkii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo sharmaake axmed cali amaba jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo yunis axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. muxubo aadan cali oo joogto baardheer waxay baafinaysaa mahdi aadan cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mexico 2016 haddaba haddii uuna maqlayo mahdi aadan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo muxubo aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. hodan cabdi cumar oo joogta garbaharey waxay baafinaysaa xasan cabdi cumar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Turkiga sanadkii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo xasan cabdi cumar amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo hodan cabdi cumar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. mukhtaar muuse mawliid oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa sharmaarke muuse mawliid waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Norway 2012 haddaba haddii uuna maqlay sharmaarke amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo mukhtaar muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cumar cabdille cali oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa ibraahim xujuun cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Tanzania sanadkii 2010 haddaba haddii uu maqlay ibraahim xujuun cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cumar cabdille cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. sharmaarka axmed yunis oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa maxamed axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sweden 2015 haddaba haddii uu maqlay maxamed axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo sharmaarke iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. geelle diiriye shiinow oo jooga balad xaw waxa uu baafinayaa canab diiriye shiinow waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ethiopia sanadkii 2002 haddaba haddii ayna maqlayso canab diiriye shiinow amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo geelle diiriye shiinow iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. shukri aadan cumar oo joogto baardheer waxay baafinaysaa ifraax aadan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan India 2012 haddaba haddii ayna maqlayso ifraax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo shukri aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. shaafic cali jaamac oo jooga balad xaawa waxa uu baafinayaa xaawa cali jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadkii 1993 haddaba haddii ayna maqlayso xaawa cali jaamac amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo shaafici cali jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. xafso cali maxamed oo joogta baardheer waxay baafinaysaa shamsa cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ciraaq 2015 haddaba haddii ayna maqlayso shamsa cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xafso cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. xalimo aadan nuur oo joogta baardheer waxay baafinaysaa dadka kale ah khaliif maxmuud iyo muuse yuusuf waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Ethiopia sanadkii 1998 haddaba haddii ayna maqlayaan khaliif maxmuud iyo muuse yuusuf amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo xalimo aadan nuur iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. cabdiqani aadan cali oo joogo baardheer waxa uu baafinayaa axmed aadan cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Suuriya 2005 haddaba haddii uuna maqlayo axmed aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdiqani aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay cabdi beyle aadan oo joogo busaar waxa uu baafinayaa saaro beyle aadan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya sanadkii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso saaro beyle aadan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo cabdi beyle aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. baafintiina maanta waa naga intaa.